aniga TV-ga fiirsaday waxa waaye dadka caalamka hadaa aragtid dhibaatada ay ku jiraan waa yaabaysaa waxaana jiray dowladda waxay u xilsaartay guddi gargaar oo wasiiro ka kooban maalin dhaxdaas waxaa ila soo xiriiray eediydan hadda al-shabaabku u badan yahay ufurow iyo qasax dheer dad degan oo ka soo qaxay oo baydhabo bakaarihii kaydkii misigada ahaa ahduubi markaas waxaan u tagay wasiirka gargaarka waxaan dhahay meelaha al-shabaab ay haysato dowladda xukunta soo saas maaha dadkii soo qaxay inay wax u qabato ayadaa laga rabaa waxay yimaadeen baydhabo yimaadeen ugu yaraan 150,000 oo qof oo soo qaxeen kaydkooda misigada biyaha kale waxaa saa ka warqabtaan cimiladii waa isbedeshay climate change dhacay daartii iyo guga haddii la isku daro waxaa la heli jiray dhan 600 millimeter markii oo rain gauge-ka ama rainfall-ka la cabirayo markaan hadda daartii ka xoog badan gugi ilaa gugi 300 millimeter ahaa daartan 200 ah haddii 250 ay imaanaysay isku darkooda marna wuxuu noqonayaa 600 millimeter hadda cimiladii aad isbedeshay daar kasto saana u dhacdaa roob waa bataa waxaa la ii sheegay meelo ka mid ah waxaa jooga dad extensionistayaal oo beeraha ku takhasusay oo rain gauge u saaran guryahooda korkooda hal maalin eeridan maxaa la dhahay zoonahan oo shabeelo iyo agaarkaas meel la dhahayo waxaa ku qubtay 100 millimeter oo roob ah nin extensionista ay soo sheegay telefoon ugu soo sheegay waxa waay bakaarihi dhulkaas oo deegaanka baydhabo saas oo kale waa dhulkan webiga saa ka warqabtaan hadda fatahaadan waxaa usii daranba maxaa la dhahay duufaanadan la sheegay maalin dhowey baraawo waxaa waaye duufaantu waa saameys 6 qof ku dhimatay guri ku dhimay cid ka hadashay mana dadkii loo xilsaaray guddiga dowladana maxaa la dhahay inay ka hadasho arrintaas wax u qabato ani markaan la hadlay guddiga gargaarka waxay ii sheegeen in raashin u yahay oo dowlado badan oo caalamka ay keeneen waxay leeyihiin ma gaarsiin karno logistic ma hayn qalab waa waxaas maxaa loo hayaa logistic 30 kilomitir oo afgooyna oo raashin la geeyo dowladda xooggeeda ciidan 25 kuna dowladda wadanaana la marsiin karaa raashin waa la geli karaa waa howlgab oo ay sameeyaan guddiga gargaarka marka waxaan rabnaa in guddigaas gargaarka howlihii ay qabteen magaalada saarto raashin badan ay yaalo kii ugu dambeeyay hadda talyaaniga marka waxaa la rabaa in loo qabto sidaa afgooyo waxay noqotay meel oo maxaa la dhahay iska hilmaamo inaysan ku jirin dowladda federal aysan ahayn aan ku aaminsannahay marka waxaan rabnaa stateka maamulka koonfurka waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan sidii dadkan loo rumin lahaa in guddi la saaro oo la xisaabtamayo guddigan oo gargaarka dowladda dhexe hadalkeeda waxaan ku soo koobaa qof alla qofkii wax ku tari kara waxaa waay dadkaas xalay haddaad fiirsatay TV waxaa la soo saaray walaahi intaada qabanayso markaan waxaa waa isku gargaarna awalba beledweyne iyo gargaar waxaa u gurmanay waxaa u dadkaa dowladda uma gurmanay muxsiniin iyo dad shacaba u gurmanay dadka dibadda la dhagaysanayana waxaan rabnaa inay u soo gurmayaan gobolka shabeellada hoose gebi ahaantiis webiga meel uusan ka fatihin sida aan wararkaa ku helay waa gobol la iska hilmaamo waxa waaye maamulka meesha ka jirin haddaa fiirisid waxa waaye waxay u badan yihiin dhalinyaro yaryar oo maleeshiya leh oo dadkii deegaanka ay ku yar yihiin dadka meesha maxaa la dhahay maamulaha marka waxaan rabnaa ha loo gurmado hadalkayga meeshaan kusoo koobaa asalaamu calaykum